magaalada Muqdisho iyo dalka oo dhan waxa ka socda dib u dhis waxaana soo kordhaya dhismooyin casri ah laakiin dhibaatada ugu weyn ee hadda ka jirta koonfurta Soomaaliya waa wadooyinkii dalka oo burburay gaar ahaan wadooyinka Muqdisho dibadda uga baxa ee aada gobolada dalka sanado badan kadib tan iyo burburkii dawladda Soomaaliya waxa markii ugu horeysay dhismo iyo dayactir lagu bilaabay wadooyinka isku xira Muqdisho iyo Afgooye Muqdisho iyo Balcad waxaana sida qorshuhu yahay la doonayaa in la gaarsiiyo ilaa magaalada Jowhar ee xarunta Hirshabeelle jidkan la dhisayo la nooc ma aha kuweenii hore ee naga burburay bal hadaba eeg baaxadda ay wadadani leedahay 1 2 3 4 5 6 7 8 halkan waa marshabiyeedigi 1 2 3 4 5 6 7 8 guud ahaan waxay isku tahay 16 mitir waxay leedahay laba fidqo waxaanay ka shaqaynayaan maalin walba intii ay karaan waxa dhiirigelin weyn ay u noqon doontaa beeraleyda Shabeellaha Hoose haddii amnigu uu sii hagaagana dad badan oo liido iyo maqaayadaha magaalada Muqdisho dhexdeeda hadda casriye u doonta ayaa isku arki doona Jeerey Jambaluul Sabiid iyo Caanoole fariisin weyn ayay sameysteen shirkadaha Turkiga ee dhisay wadada iyo shirkadaha kale ee la talinaya ee Soomaalida waxaana halkaasi aad ku arkaysaa qalabyo kala duwan oo shaqo adag ku jira bacaadkii laamigii jaayigii ayaa si baaxad leh waxay ugu fidsan yihiin dhul aad u ballaaran gawaarida noocyadeeda kala duwan ee shaqaynaya shaqaalaha isugu jira Soomaali iyo waliba ajnabi ee subax walba u kala haya ayaa waxa shakil aan ku soo baxaysa in mar kale ay soo bidhaamayso rajadii beeraleyda labada Shabeelle oo baahi weyn u qaba in ay suuq u helaan dalagyada kala duwan ee ay beertaan tiyo uu soo hagaagayo isu socodka dadweynaha wadada inta la dhisay ilaa iminka way si camirmaysaa oo waxa laga dhisayaa dhismooyin ganacsi iyo masaajid aad u qurux badan inkastoo aan wali amniga dartii loo ogolaan in dadkaasi ay ku shaqeystaan wadadan dhinacyada waa laga xiray sababta looga xirayna waxay tahay arrimo amni awgeed maalin walba ayay dadku halkan mari jireen laakiin hadda ma maraan wadooyin kale oo qardajeexa ayaa dadku ay marayaan oo ay ku tagaan Afgooye culays bay ku tahay laakiin waxa ka muhiimsan dhismaha wadada sida uu qabo Abuubakar Sheekh mashruuca saameyn dhaqaale oo weyn mudane door ayaa la filayaa dadka waa ku dhirfaadsan yihiin dad badan ayaa nooga dhintay challenge badan ayaan ku marnay laakiin wax kasta waxa ka qaalisan waxa uu saameyn lahaan doono oo ah in beertii ruuxi soo saartay beertiisa xamar uu subaxii u soo shaqatay u keensan karo wixiisa u geedan karo gurigiisana si dhaqso ugu laaban karo bariiska iyo galeyda iyo maxaa la dhahaa yaanyada xamar laga cuno beerihii laga soo guri lahaa waa kuwaan meesha yaalaan marka beerahaas iyo muxuu ahaa inay isku xirmaan beledkii ugu weynaa marka ugu dambeysna uu dalka oo dhan isku xirma ayaan rajaynaynaa waxaan aad uga mahadcelinaynaa dawladda Qatar oo muxuu ahaa hawshan si xoog leh u qabatay mashaariic istiraatiiji ah Soomaaliya kala shaqeynaysa waxaa sidoo kale iyana la bilaabay dhismaha wadada Balcad iyo Muqdisho oo ah wajiga labaad ee mashruuca haddii si nabada uu ku dhamaado dhismaha wadada Afgooye waxa dhiirigelin weyn ay u noqon doontaa beeraleyda Shabeellaha Hoose haddii amnigu uu sii hagaagana dad badan oo liido iyo maqaayadaha magaalada Muqdisho dhexdeeda hadda casriye u doonta ayaa isku arki doona Jeerey Jambaluul Sabiid iyo Caanoole Maxamed Ibraahim Macalimo
maxamed ibraahim macalimo